dhammaantiin bahda miidiyaha oo aan idin salaamayaa waad ku mahadsantihiin inaan idin yeernay oo aqbasheen inaad noo timaadaan runtii ma jeclayn inaan waxyaabaha aad u hooseeya ka jawaabno laakiin hadday beentu lagu celceliyo way rumowdaa waxaan doonaynay iminka barnaamij ka baxa TV-gan Home Cable TV oo la yiraahdo barnaamijka good governance amba maamulada wanaaga laakiin aan isleeyahay waa barnaamijka aan u bixin lahaa barnaamijka propagandada iyo beenta Somaliland ayaan jeclahay inaan dhowr kalmadood ka niraahno runtii qofka barnaamij diyaarinaya inta badan waa researcher-kuna waxa fiican wuxuu diyaarinayo inuu xog iyo xaqiiq facts and figures ummadda maaragtay uu soo bandhigo waxaan moodaa barnaamij muddo soo socday weeyaan horta waxaan ka cudur daaranaynaa in barnaamij aad u hooseeya noocaas oo kale inaan ka jawaabno laakiin haddana shacbi weynaha Somaliland si aan macnihii aan majarahooga looga celinin baan jeclaysanay inaan dhowr kalmadood kuma ka nidhaahno horta waxaa ka muuqata barnaamijka aqoon darro maamul iyo aqoon darro xagga shuruucda dalka iyo hay'adaha dawladda structure-kooga iyo nidaamkoogaba waxaa kaloo ka muuqata aqoon darro xagga mashaariicda saddexda aqoon darro aynu jeclahay marka hore inaan saxno aqoon darro maamul baa ka muuqata oo marka aad doonayso inaad institution wax ka sheegto waxaa fiican inaad institutionkiisa iyo hay'adihiisa iyo shaqaalihiisa iyo wixiisaba amba si fiican aad uga hadasho amba aanad gowrin aad maaragtay si ballaaran aad uga hadasho waxaan jeclahay in wasaaraddan oon habeen hore ka arkayay barnaamijka iyo xalayba inaan saxo horta siduu uu sheegay wasaaraddu waa wasaarad cusub oo wasaaraddii cusub ay qaranka lagu soo kordhiyey wasaaraddani waa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wasaaraddan shaqaalaha wasaaraddu siduu uu sheegay waxa weeyaan waa qayb ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga waxaa jira waaxo inta badan cross-cut ay wasaaraddu wadaagaan sida admin and finance oo kale iyo qorsheynta oo kale laakiin wasaaraddu lama wareegin kalluumaysiga shaqaale kalluumaysiga waxay la wareegtay shaqaalihii gaadiidka waaxda gaadiidka oo laba laab ama saddex laab ka badnaa wasaaradaha kalluumaysiga laba waaxood baa laga wareegay wasaaradduna waa 5 waaxood waxa kaloo hoos yimaada hay'adda horumarinta wadooyinka RDA shaqaalaha wasaaraddu wax ku dhawaad waa 420 shaqaalaha waxaan sidnaa wasaaraddan waa wasaaradda kaliya laba saddex wasaaradood ma ka shaqaalo badan wasaaradda caafimaadka ta waxbarashada iyo maaliyadda shaqaalahaas waa shaqaale xirfad leh marka horta waxaan doonayaa inaan saxo qodobkaas maamul aqoon darradu inay ka haysatay qodobka labaad waa xeerarka dalka iyo shuruucda iyo dhismaha laamaha dawladda waxaa ka muuqatay inaan kaasi ma fiicnayn qof noocaas oo kale nin baa wuxuu yidhi hebel waa buug sitay inanka waxaan u malayn inuu haade waa buug sitay uun waxaa jira xeerka maamulka gobollada degmooyinka xeer 23 iyo xeer 56 2016 xeerka wadamarista iyo xeer nidaamyaha 01 2018 xeerka wasaaradaha iyo hay'adaha dawladdu intuba waxay saynayaan wax la yiraahdo segregation of power wasaaradda iyo dawladaha hoose waxbay ka mas'uul yihiin xadna way kala leeyihiin wasaaraddeedu waxay ka mas'uuliyaddeedu wax ka bilaabantaa waxay ka mas'uultay waa highwayska iyo wadooyinka dibadda laakiin waxa magaalada gudaheega iyo bus stationada iyo waxa ku shaqo leh dawladaha hoose wasaaraddu kama shaqeyso bus station iyo kala xadeynta basaska iyo tagaasida iyo marka waxaad moodaa sida wasaaradda iyo mas'uuliyaadkeedu si cad wax ugu qoran yihiin xeer nidaamyaha madaxweynaha xeer 2018 qodobkiisa 25aad oo ka kooban 13 farqadood marka waxaan jeclaan lahaa isagoo sheegay maamul wanaag oo sheegay inuu wanaajiyo
inuu shuruucdii dalka iyo xeerarkii dalka aanu aqoon darro badan u baahsanin ka hayso marka waxay ceeb ku tahay ay nusqaan ku tahay tvda ugu weynaa Somaliland oo kale inuu barnaamij noocaas oo kale ah oo aan edit karin inuu ummadda ku sii daayo waxaa kaloo dhibaato ka haysatay mashaariicda dalka aqoon uma haysanina kaasi xogna kama haynin home cable TV maanta arkiifyadiis dhammaan waxaan ka hadlayo u wada kaydsan kaydkiisu way ku wada jiraan Soomaalida waxay xalaal iftiin baa la qashaa annagu faanina mayno laakiin waxay wax qoran waana yaalaan waxaa jira buugga ay wasaaraddu soo saartay 2018 oo buuggaas home cable TV laftiisa koob ka mid ah oo siinay arkiifyadiisa ay taallaa wasaaraddu waxay qabatay waa 3 mashruuc ayay qabatay 3 mashruuc halkaas ku qoran yihiin sidoo kale waa kan buuggan labaad buugga waxa soo saartay wasaaradda qorsheynta qaranka waa National Progress Report wasaaraddu waxay ku qabatay page number ku leedahay isaguna waa yaala hadduu baahnaan lahaa hadduu research sameeynayo waxaa kaloo jira buugay soo koobtay xukuumaddu oo la yiraahdo waxqabadka 2018 wasaaraduna section ku leedahay isla markaas 3 mashruuc way ku jiraan mashaariicda ugu waaweyn ay wasaaraddu qabatay ee ugu ballaaran waxaa ka mid ah oo ogtihiin mashruuca wadada gobolada Sool ee gobolada Sanaag iyo Togdheer ayaa ka mid ah oo sanadkii 2018 wasaaraddu ay dhistay 60 kilomitir waxaan doonayaa inaan caddeeyo aqoon darrada xagga mashaariicda ka haysata inankaasi fasalka iyo wadada wax isku haystaa inay isku kos yihiin wax la dhiso waxa ugu qaalisan waxa la yiraahdo infrastructure oo wadooyinka airportada iyo dekedaha waxaa laga yaabaa 1 kilomitir inuu 1 milyan noqdo 1 milyan inuu noqdo ayaa laga yaabaa imka mashruuca Hargeysa bypass oo aan la bilgeliyay oo 22 kilomitir shirkadda ugu horeysay 16 milyan bay soo jeedisay budgetka wasaaradda ugu jiray sanadkii hore iyo hay'adda wadooyinkana wuxuu ahaa 4 milyan waxa kaloo nasiib darro ah 2018 in ka badan 280 kilomitir oo wadooyina oo inta u dhaxaysa waxaas waxay ku wada qoran yihiin buugaagtaasi ku qoran yihiin 280 kilomitir oo u dhaxaysa waxa dayactir lagu sameeyay inta u dhaxaysa wadada Hargeysa ilaa Burco 280 kilomitir waxa dayactir lagu sameeyay gobolka Sool Tukarraq waxa laga qabtay 280 kilomitir oo ay duufaanta waxyeelisay wadooyinkii field roadska ahaa marka kulli waxaan jecelahay iyadoo detail ah halkan aad keli doonaa 3 mashruuc waana nin kasta koobigiisa oo sawran doona marka waxaad jirtaa aqoon darro in ka haysato wax Allah waxa la qabtay ma jirto isagana insha Allah wadayn doona haddaan u soo noqdo miisaaniyadda oo ka hadlay horta waxaan aqoon darro weyn baa ka haysatay wasaaradda structure-ga horaan u sheegay wasaaradda waxa hoos yimaada hay'adda horumarinta wadooyinka miisaaniyaddii 2018 boqolkiiba 80 miisaaniyaddaas waxay isticmaalaysay hay'adda ee wasaaraddu ma isticmaalayn boqolkiiba 80 waxay isticmaalaysay hay'adda horumarinta wadooyinka oo waaranka anagu saxano agaasimo guud waa jooga isagoo agaasimo guud 20 ay miisaaniyadda 20 ay dinka ka isticmaalay 2019 hay'adda horumarinta wadooyinka 4.5 ay isticmaalaysaa waxay isticmaashay waxa harsan 5.5% oo miisaaniyadda kamid ah waxa loogu talagalay mashruuc gobolka Togdheer caasimadiisa Burco oo bariish cusub laga dhisi doono qayb kamid ah imkaan u sii deynay 20% baa wasaaraddu soo hadhay marka hortu waxa fiicnaan lahayd
in marka aad ummad wax u bandhigayso xog fiican oo ummadda ku qanacda inaan waxaagu noqon ceeb iyo ceebeen barnaamijkan waxaan u arkaynaa inuu yahay barnaamij inay cid ku dhex jirto oo magarasa ah barnaamij propaganda haddii aan usoo noqdo sanadka 2019 mashaariicda imika gacanta lagu hayo ee infrastructure-ka waa ilaa 7 mashruuc waxaad moodaa inankaasi Somaliland inuu yaqaano wixii Hargeysa galbeed ka xiga Hargeysa galbeedkayga ha sheegay oo wuxuu iloobay mashruucan weyn ee ka socda gobolka awdal bridge weyn la dhisayo bridge weyn Hamuud inuu ku daray haddii wax kale galbeedkuna haduu sheegayo wala galbeedku waxa si mala Hargeysa galbeedka gumbo yaqaana Somaliland inuu ku daray hayd waxyaaba kale cajiibka ah mashruuca GI Sadda hay'adda GI Sadda inaga caawinayso Hargeysa Kalabayd muu eegin muu darsin dhowr jeer waan ku celinaynaa dawladda 10% kamid ah waa 4 milyan mashruucaas lacag $400,000 oo miisaaniyadeeda ka noqonaysa 9% ayaan ku daraynaa 9% miisaaniyadeena ka noqonaysa 10% ka noqonaysa mashruuca ayaa lagu darayaa waxyaabaha kale cajiibka ah mala 2 bilood ka hor dalka uu ka maqnaay bil ka hor hay'adda horumarinta wadooyinka waxa loo siiyay qalab fara badan qalabkaas ku kacay ilaa $700,000 marka la isku daro tirada guud sanadka loo siiyay sanadkan qura hadama sanadkii 2018 sanadkan 2019 ka 25% kamida miisaaniyadeedii in ku dhow waxa lagu siiyay qalab ay kamid tahay agafiyo graderro bulldozers hooyado iskarooyin marka runtii waxaan anagu marka doonaynaa inta inaan iftiimino waxaan ka codsanaynaa TV-ga maamulkiisa iyo madaxdiisaba inay raali gelin 14 minute intii ay hadlayeen la mid ah ay nasiyaan hadday bixin waayaan anagu isxaqaaqan mayno TV-na riyan mayno dalku wuxuu leeyahay sidoo sheegay waxa jira cadaalad ba shaqeysay kiiskayga isagoo caadi ah waxaan u gudbin doonaa maxkamadda iyadoo lana xidhin way ku dalacamala xarigay waxaan u gudbin doonaa maxkamadda inankaasi isaga markaa wuxuu soo cadeyn doonaa inaan waxba qabanin wuxuu beenin doonaa waxaanu qabanay baa oran doonaa waxba kama jiraan xaqiiqo raadina oo loo diri doonaa marka waxaan jecelahay hadalkayga kooban inaan inta yar aan u iftiimiyo barnaamijkaasina aan soo xasuus leeyahay wuxuu ceeb ku yahay TV-yada qaranka oo kale in wax noocaas oo kale laga sii daayo mashruuca World Bank ma maalgelinayo mashruuca waxa maalgelinaya Africa Development Bank waxaan doonayaa inaan ku sheego mashruucaas hal abuurkiisa waxa lahayd dawladda Somaliland waxaana madaxweynuhu markuu tagay Djibouti tagay uu ka codsaday madaxweynaha Djibouti in wadada wax laga qabto madaxweynaha Djibouti kuwa ka hawlgalay wuxuu sameeyay inuu ka codsado wadada in loo dhiso Africa Development Bank waxa ka wada codsaday dawladda Ethiopia iyo dawladda Djibouti iyo dawladda Soomaaliya markii dambe qayb ka noqotay maadaama Soomaaliya aan ka mid ahayn wasiirada maaliyadda ee Africa Development Bank ay mashaariicda saxiixa inaga Soomaaliya waxay noola mid tahay Ethiopia oo kale waxay noola mid tahay Djibouti oo kale ida mashruucana waxa wada saxiix saddexda dal maadaama inagu aanan ka mid ahayn Africa Development Bank shaqadiisa iyo hawshiisana Soomaaliland baqaantu ka haysta oo ogtiin anaga halka ku baahinay wax lagu baahiyay jaraa'idadeenna wax lagu baahiyay page-ka wasaaraddu ku leedahay mashruucaas ee lagu baahiyay dadkii ma korsantanka kan laakiin totally waxay dawladda Soomaaliland kala socotay ma jirin saasi ku kala duwan tan anaga gacanta ku hayna Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Djibouti mashruuca wada saxiixeen maadaama ay qayb ka yihiin Africa Development Bank wasiiradooda maaliyadda Ethiopia ka saxiixday iyo Djibouti saxiixday miyaguna kala mid yihiin fulintiina inaga la inoo fulinaya saddexda dal la iska kaashanay kanna saasay weeyaan haddana soo noqdo barnaamijkan TV-gu wuxuu leeyahay maamul buu leeyahay editor buu leeyahay wuxuu leeyahay maamul
barnaamijka hasta iskama baxdo ma waxaan oran karnaa been inta leeg oo la ciid qacan ku lahayn ay TV-ga qaran TV inta leego TV-di ugu horeeyay Soomaaliland laga sii daayay marka anagu waxaan is leenahay uun de farba ku jirta hadii maxaa loo sii daayay ilaa wax kasta waxaan cadeynaynaa been inuu yahay been yahay beentana TV-ga sababta lagu sii daayay de kulli anagu waxaan danaysanahay inay farkalin ku jirto ama ha noqoto maamulka ama ha noqoto shaqaalaha mashruucan imika GI sadoo in la wado midowga Yurub qayb ka yahay waxa la yiraahdaa SRMP baa la yiraahdaa Sustainable Road Maintenance Program baa la yiraahdaa Somaliland ba inta badan anaga saxiix heshiiskaas Soomaaliya ma saxiixdo arrinkan aan cusub waxa sidaan u sheegnay dawladda Soomaaliya way siyaasadaysay tabeedada maadaama ay siyaasadaysay anaguna waxaan aragnaa wax la siyaasiyeynaa in Soomaaliya shaqo ku yeelan doonin insha Allah dola ka dhigo